Assalaamu calaykum kusoo dhawaada mar kale insha allah kanaalkeena tiyooriyiga af soomaaliga aad kaga barateen oo aan isku dayi doona inaan sharaxo insha allah cashirka maanta wuxuu quseyn doonaa inhalin ama daafid ama baasgarayn haddii si kale loo dhigana overtaken insha allah waa laba qeybood waxaan isku dayaa insha allah inaan hal qeyb cashirkan aan kaga baxo ama aan ku sharaxo midda noogu horeysa waa rechts inhalen maqbay inaa baabuur dhanka midig aad ka dhaafto ama aad ka baasgarayso ama aad ka inhaal garayso waxaa la ogol yahay 5 arrimood a waa block markerin calaamad loo yaqaano block markerin bayne waa rotondada amaba waa dawaaradda insha allah c waa filada ama zaxmada day waa tramka inaad dhanka midig aad ka baasgarayso a afsland bestudes na links waa darawal isku hagay ama isku toosiyay inuu dhanka bidix yani oo rabo inuu u leexdo dhanka midig waad ka dhaafi kartaa insha allah marka qaybta ayaan isku dayi doonaa inaan saara diyaarada qaybta kale waxay inoo noqon doontaa mar kale insha allah tacaala ama video kale haddaan sawir iyo su'aalba aan isku dayno su-aasha inoogu horeysa midda noogu horeysa waxay ahayd in calaamadda block markerinka loo yaqaano ama riigada loo yaqaano waa block markerinka adigoo jooga ama waa ku wada gaari inaad dhanka midig oo gaariga dhanka bidix kaa jooga aad dhaafi kartid ama aad inhaalin ku samayn kartid waxaa la ogol yahay kaliya calaamadda loo yaqaano waa block markerin hadda gaariga cad oo yar dhanka midig ayuu taagan yahay wuxuuna ka taagan yahay calaamadda loo yaqaano block markerin oo ah calaamad u go'an afar gees so su'aalaha tan bidix iyo tan midigna waa la isku qaldaa tan bidix marka waxay leedahay u wilt hier de langzaam rijdende vrachtauto rechts inhalen maqdad waa midda midig waxaa rabtaa gaariga weyn oo sida tartiibka ah u socda inaad dhanka midig aad ka dhaafto ma la ogol yahay jawaabta waxay noqonaysaa waa haa maxaa dhacay dhanka midig ayaad ka xigtaa calaamadda loo yaqaano yacni block markerinka laakiin midda kale waa isla iyadii un laakiin waxay ku kala duwan yihiin calaamadda insha allah ama riigada ama strapeka waxaa la yidhi maq u hiirida frakta waaken rechts inhalen ma lagu ogol yahay in gaariga weyn dhanka midig aad ka dhaaftaay waa maya maxaa yeelay calaamadan oo loo yaqaano waa underbroke strape oo horaa usoo qaadanay inaad dhanka bidix aad ka baxdo asaas gaariga aad ku dhaafto unbaa la ogol yahay laakiin dhanka midig waa maya lama ogola makhnid so su-aasha iyo sawirka inaad si fiican iskaga fiirisa aadna iskaga hubiso aad bay muhiim u tahay insha allah su-aasha xigta haddii aan gudubno waxay sheegaysaa iyadana waxay ahayd rotondo ama waa dawaarad ama waa runabout yacni rotondada waxay jirto iyadoo laba raystroke ama laba leen leh haddii marka laba leen ay leedahay rotondada horteeda iyo rotondada markaad aad kor taagan tahay labada joor waa lagu ogol yahay inaad baabuurta ka baasgarayso dhanka midig iyo dhanka bidixba qodobka koowaad wuxuu ahaa waa block markerin adoo joogo midda labaadna waxaa weeye insha allah rotondo su-aasha waxay noqon kartaa insha allah midda yani oo ugu sahlan kuntu of the rotondo rechts and links inhalen ma kartaa in rotondada dhanka midig iyo dhanka bidix aad ku samayso waa baasgarayn ama dhaafitaan oo aad gaari dhaafto ha yawa su-aasha for intaan la gaarin and of the rotondo iyo markaad kor taagan tahayba waa rotondada insha allah waa qodobka labaad hadduu ilaahay idmo qodobka saddexaad ama su-aasha saddexaad iyo sawirkeeda wuxuu ahaa filada ama zaxmada
zaxmadda waxaa la yidhi su-aasha waxay noqonaydaa sidoo kale wilt inen file rechts inhalen maqdaad waxaa rabtaa adoo taagan file ama zaxmad socda in baabuurta dhanka bidix kaa taagan inaad dhanka midig aad ka garab dhaafto ama aad ka baasgarayso waxay noqon doontaa iyadana insha allah ha rechts inhale waxaa la ogol yahay qodobkeeni saddexaad ama su-aasha saddexaad waa filada haa wey insha allah fadlan su-aasha iyo sawirka inaad si fiican iskaga egta isku day haddii la doono su-aashada waxay ka hadlaysaa file laakiin waxaa lagu dhigi karaa meeshan ama sidatan ma ku samayn kartaa inhalen ina waxaa laga rabata aad fahmi kartid inay meesha tahay filo ama ay tahay dawaarad ama uu yahay waa blog marketing waxaa u gudbaynaa insha allah su-aasha afraad hadduu ilaahay idmo su-aasha afraad waxay ahayd waa tram waxaa la yidhi idana mag u de tram zo inhalen waa su-aal gaaban oona fudud ma lagu ogol yahay in bahalka loo yaqaano waa tramka dhanka midigaad ka dhaafto ha waa qodobkeeni afraad yacni waa tramka dhanka midigta inaad ka baasgarayso aad ka dhaafto waa la ogol yahay su-aasha noogu dambayn doonta insha allah waxay noqonaysaa waa afslanda auto gaariga cad oo kaa horeeya wuxuu isku toosiyey ama isku hagay in uu dhanka bidix yacni u laabto adiga marka waad daba socotaa inaad dhanka bidix aad u leexatana dooni maysid ama inaad midig u leexato ama toos aadaa rabtaa insha allah haddana waxaad iska fiirisaa waddada baskiilka ah waxay leedahay riigo ama strayb go-go-on waad kartaa in aad waddada baskiilka isticmaasho aadna gaariga cad dhanka midig ka dhaafto iska eeg haddii dhanka yacni waddada baskiilka aysan lahayn wadda lane ama strayb go-go-on hadduu straybka isku xiran yahay waxay noqonaysa su-aasha maya waxaa kuu diidaya in laneka baskiilka aadan kori karin insha allah haddaba marka waxay noqonaysaa u halt the links afsland auto rechts in waxaad ka garab dhaafaysaa ama aad ka baasgaraynaysaa gaariga isu hagay inuu dhanka bidix u leexdo dhanka midig maqdaad ma la ogol yahay waa haa hadduu ilaa idmo so su-aasha waxay noqon insha allah su-aashii noogu dambeysay oo ka hadlaysay 5 qodob oo lagu ogol yahay in dhanka midig aad ka baasgarayso gaadiidka waa 5 kaliya la ogol yahay in aad ka baasgarayso baabuurta dhanka midig xaaladaha kale ama altide ama waa mar kastaba waxaa lagu ogol yahay kaliya haddii meesha aysan mamnuuc uusan oolin inaad dhanka bidix aad ka baasgarayso baabuurta insha allah waxaan rajaynayaa in 5 qodobood lala fahmay oo aadna wax ka faa'iidi doontiin insha allah waxaan isku dayi doonaa 5 kale ama su'aalaha kale oo lagu ogoleen inaad haalan samayso inaad ka soo samayn doonto insha allah 10 kale waxaan idinkaga tagayaa insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wa barakaatuh.